madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse bixi cabdi iyo waftigii uu hogaaminayay ayaa gaaray magaalada Abu Dhabi caasimadda waddanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dawladda Imaaraadka waxaana madaxweynaha markii uu gaaray magaalada Abu Dhabi si meeqaam sare ugu qaabilay madaarka mas'uuliyiin ka socda dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha muddada uu ku sugan yahay waddanka Imaaraadka Carabta waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas'uuliyiinta sare ee waddanka Imaaraadka Carabta waxaana safarkan madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta mudane jaamac maxamuud cigaal wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta mudane sheekh khaliil cabdulaahi axmed iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska mudane maxamuud xasan sacad saajin oo hore ugu sii sugnaa dalka Imaaraadka Carabta